kusoo dhawaada hore u gudbiyey haddii doorashada dib loogu laabtana dee sida hore ma noqonayso doorasho keliya ka dhacdo lagdheeraay maxaa yeelay haddii hataa rufaan laga isku koobtay baaritaanka ayada shaygan dhahay isku dhigtin baa lahaa waa baaritaan mudaniga aadan baray siiyey wasiirka difaaca cadeen fiican aan geynay kee ah ayaa geli karaa haddii doorashada dagaal kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aan ku eegayno dacwadda maxkamadda ee ku aadan deegaan doorashada ee markaasi lagdheera ismaamulka Gaarisa oo dhawaan maxkamaddu ay amartay in dib loogu laabto doorashada kadib dacwad muddo dheer qaadatay oo ay maxkamaddu dhageysanaysay waxaa maxkamadda sare ay markaasi amartay in doorashadaasi dib loogu laabto iyadoo dhanka kale 14 maalmood siisay dadka markaasi raacfaanka qaadanaya inay raacfaan ku qaataan haddaba rajadooda intee la eg tahay kooxaha markaasi gudbiyay dacwadda oo dad markaasi arrimaha u ololeeya bulshada ay ka mid yihiin horaantii isbuucii hore ayaan wareysanay maxamed ibraahim sugow oo ka mid ah dadka dacwadda gudbiyay una ololeynaya mu dhaqdhaqaaqay arrimaha bulshada mar kale ayaan fursad u helnay maxamed inaan ku wareysano qadka tooska ee Skype-ka isagoo markaasi ku sugan Dadaab maxamed ibraahim aad u mahadsan tahay kusoo dhaw telefishinka STN maxamed waa mahadsan tahay adiga iyo telefishinka STN inaan mar kale maarta fursad siisiin oo nooga hadlo arrimaha ku saabsan petitionkii lagdheera iyo wixii maxkamadda ka soo baxay marka aad iyo aad u mahadsantiin aad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga maxamed maxkamaddu waxay amartay in doorashada dib loogu laabto horaantii bishii dhamaadkeeda aadna ku wareysano rajo wanaagsan baa ku muujinaysa dabcan hadda waxaa muuqataa rajada inay caddaatay bal nooga waran dareenkiina waa sidee hadda maadaama maxkamadda ay doorashada dib loogu laabtay amartay wallahi haddii wixii aan doonaynaan helnay aad baan u faraxsannahay annagii oo petitioners dadkii dacwoodan ah iyo bulshadii reer lagdheera aad bay u faraxsan yihiin maaya faraxtin aan la koobi karin marka haddana waxaan sugahaynaa insha Allah hadduu la yiraahdo muddadii doorashada in la qabto haddii maaragtay ninkii MPga hadda xilka hayo uu maaragtay dacwada asagana uu maaragtay maxkamad kale u geysto masarufaan uu ka qaato ayadana sharciga uu ogol laakiin reer lagdheera waxay isku diyaarinayaan doorasho mar labaad inay doorasho ku noqdaan ay isku diyaarinayaan tahay rajadiina intee ay la ekeed ma idin lahayd in maxkamadda ay amrayso in doorashada dib loogu laabto markii hore ها سيدي أنا كل شيء أسبوع على صوت دافي أنا واحد مرة تعبان وذني هذا السيدة من مرة رجدا إن أدو أنت كويري هذا أنت إنكسي بدن عائلة هذه هترفع لك قاطع وحنقمنا هذا إن هو قولي سنين إن شاء الله واي هاي go-aanka maxkamadda waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay markaasi jiraan abaaro ba'san lagdheerana ay ka mid tahay deegaanada ku yaala Gaarisa oo abaartu ay saameysay bal inooga waran saameyn intee leeg bay ku yeelan kartaa bulshada anagoo maqlaynay dadweynihii reer lagdheera oo ka hadlay oo cabashadooda ugu badan ahayd arrimaha abaaraha iyo amniga saameyn intee leeg ku yeelan kartaa arrimahaas oo kale haddii dib loogu laabto doorashada سيدا شيخ محمد وقت كورل بالوجرة وقت عوار بالوجرة إلهي أنا قاعد عوارهن لكن وحن قبا الرب إلهي بحثنا لكن بليه والرب كده عجري هذا دواب الجوجا دورشة أنا ما أعرف مانتي بريمن عيسو عائلة إلا يسقاش بريوة وسدح بلوت مركز بيش الحد بنقول جنة دير فعلا قاعدين دورشة بيش اللي حد بيش التضاد بنقول أنت أنا وحنفرين إن شاء الله رحمة إلهي اللي هلي دونه dadkii waqti ay maaragtay qawwihiin waqtiga qawwihiin inaan doorasho aad doono laakiin hadda waqti xaadirkan dadka aad u kullihiin hadii doorasho maanta la qabto inay dad fara badan ay codeen doonaan ila ma aho marka waqti kulba lagu jiraa haba ahaatee laakiin waxaan filaynaa insha Allah doorashada ilaa bishii lixaad mas'uuliyadda imaan doonto waqti maaragtay dadka ay roobaysteen hadii la yiraahdo dina iska qawwi insha Allah maxamed waxaan uga warbixisaa markii uu keen dambeysay waxa ay sheegtay in maxkamadda ay fasaxday in 8 polling station ama goobaha codka laga dhiibtay codadkii la dhiibtay dib loo xisaabo go'aanka maxkamadda ma wuxuu ku saleysnaa halkaas oo cadeyn ay ka imaatay ha maxkamadda wixii warbixin oo anaga aan bixinay masaa'il BCA bixisay masaninkii MPga kursiga ku jira uu bixiyay gaar bay iska dhigtay
waxay maaragtay ay isku koobtay baaritaanka ayada ee subisay shayga indhaha scrutiny waa la waa baaritaan kaas oo maaragtay ayada ay baaraysay doorashada 8 goobtii loo qabtay marka baaritaanka ayay isku koobtay waxayna dhahday wixii baaritaanka ka soo baxay walaaleen dacwo ka geysteen waxay dhaheen macnaha baaritaankan kuma jirin waxyaalihii plea baa la dhahaa nimankan ay codsadeen in la fiiriyo marka yaan la fiirinin bay dhaheen maxkamadda waxay tiri waa la fiirin maxkamadda wax walbo la hor keeno waxay tiri waa muhiim marka tii bay isticmaashay 8 goobood oon ka cabanay 8 ka mid ah bay maxkamadda maaragtay wixii ka soo baxay resultkoodii ay tuurtay marka tii ayay isticmaashay maxkamadda caddayn noocee ayaa laga helay marka haddana la wadaagtid anaga iyo dhageystayaasha waxaa laga helay kurihii ka dhacay isha ayada oo maaragtay form 35 la dhaho ku qornaa oo MByaasha u dhacay iyo kurihii mashiinta maray mashiinta waxa waaye waa rajistihii dadka maaragtay laga saxay magacyahooda inay isdaba mareen oo maaragtay sidii la rabay isku geli waayeen meel qaarkood waxaa laga helay counterfoil waa si dhaaran ii sheegay waa buuggii laga goynayay qardaasaha lagu codeynayo inay meesha ku jirin hadday ku jirinna sida la agligeed maxkamadda ay ku turtay marka maxkamadda waxay soo qabsatay qodobo aan laga bixi karin sharciyan maxkamad walba haddaa tagto marka waxaan qabaa haddana maxkamadda ka sarreysana inay maaragtay maxkamaddan wixii ay go'aamisay ee ayadana ku adkaysan doonto insha allah waay dhanka kale waxay maxkamadda u fasaxday raacfaan inay qaataan qolyooyinka kale ee marka dacwadda aad ka gudbiseen uu horkacayo xildhibaanka halkaasi cabdiqaadir xuseen haddii ay raacfaan qaataan maxkamadda ay u gudbiyaan maxaa isleedaha uu ka soo bixi karaa raacfaankooda horta waxaa waaye ruuxa waddanka xaqaaqa fara badan oo ruuxa shakhsiga uu leeyahay jiraan marka ninka walaalkeena uu xaq u lahaa inuu raacfaan ka qaato maxkamaddii go'aamisay in doorashada lagu noqdo unbaa haddana ruucfaanka halka ayada ku siisay 14 beri bay siisay oo ku xareysto inuu ruucfaan qaato stay order waxa la dhaho inuu kursiga intaas sii hayo oo ruucfaan u qaato ayay siisay waa maxkamaddii doorashadiisa waxba kama jirin dhahdaa haddana siisay marka taa waxay ku tusaysaa maxkamadda inay kalsooni isku qabto ninka walaalkeena xaqiisa ay u diidaynin asagana loo ogolaan doono inuu maaragtay ruucfaan ka qaato laakiin ruucfaanka muxuu yahay ruucfaanka wuxuu ku koobnaan doonaa arrimihii maxkamaddan ay gaartay sharci ma ahay wax cusub oo la keenayo ma laho meesha ayada wax cusub oo la keenayo new evidence baa macnaha afka qaraad lagu dhahaa lama soo maaragtay laguma darayo waxaan laga hadli maxkamaddii go'aanka ay gaartay sharciga mu waafaqsanaa hadduu waafaqsanaa maxkamadda go'aankeeda maxkamadda dambe appealka la dhaho maxkamadda ruucfaanka ee la qabi doonto insha allahu marka 3 jaaj waaye hadda tan waxay ahayd maxkamaddan hal jaaj buu ahaa middaa kale waa 3 jaaj marka ayada nafteeda inaan maaragtay guul inta hadda aan helnay in ka sii weyn baan qabnaa annaga insha allahu maxaa yeelay wax la dhaho waxaa jira sharciga oo looga ah iyo opinion macnaha jaajka wuxuu asaga qabo marka maadhantii meejan maxkamaddan jaajka eed waxay qabtay inay doorashada hadda lasoo dhaafay ninkii lambarka labaad IBC waa ay dhaheen inuu maaragtay ninkii lambarka labaad waa IBC ay dhaheen inuu ku guuleystay oo 20 kuur oo ku horeeyay ninkii MB kursiga ku jiro marka anaga naftaayna maaragtay loorinta inaan la hadlaynaa haddii sharcigu uu ogolaanayo inayba reer lag dheeraa doorasho lagu celinin oo maxkamaddan labaad ay certificate hor ka siiso maaragtay ninka la dhaho zaytuun maadaama asagu 20 kuur u horeeyay ay tiri maxkamadda la soo dhaafay laakiin sharci ma aho oo opinionkeeda markay xisaabta isku dhufatay wixii uga soo baxay waay dacwadaha aad gudbiseen waxaan filayaa inay ku jirtay mid sidoo kale aad ka gudbiseen IEBC iyo sababta ama sida ay u siisay shahaadada ama certificate-ka xildhibaanka oo hadda maxkamadda ay guushiisa ku tilmaamtay mid aanan sax ahayn bal naga waran marka IEBC iyada go'aankeeda maxkamadda maxay ka qaadatay IEBC waxay ku jirtaa ruucfaankay la geli doontaa kolley ruucfaan bay ayadana qaadan doontaa haddiiba ninkii maaragtay kursiga ku jiro ruucfaan qaatay ayadana way la qaadan haddana lacag maaragtay oo lacagtii annaga maxkamadda naga gashay ah oo la dhaho macnaha cost wixii aan isticmaalnay witness aan ku qaadnay qarashkii baxay ayaa la celiya marka qarashka celiya la dhahan waa 1 milyan iyo bar baa la bixiya IEBC baana bixinaysaa maadaama ayada taa waxay ku saysaa qaladka kama umaanin ninka biyo ku jiro laakiin wuxuu ka imaaday
dadkii doorashada gacanta ku hayay taasoo IBC ayadana lagu xukumay inay bixiso 1 milyan iyo barkaasayto oo annaga ayna siiso qarash celin ahaan ay noo siiso marka waxay la tahay IBC ruufaanka way la geli doontaa walaalkeen hadduu asaga ruufaan qaadanina kala xidinay gooni ruufaan u qaadan doonto lama hola hadduu asaga qaato way la qaadan doontaa hadduu qaadan waayo doorasho ayay diyaar u tahay IBC waxba kama qabto marka IBC ayagu way isdifaacayaan oo waxay jiraan garabka xildhibaanka oo ay siiyeen shahaadada miya waa hadduu asaga dhaho ruufaan baan qaadan ayagu ruufaanka way la qaadanayeen waa inay garab siiyaan oo arrintooda haddana u doodaan oo mar labaad ay isku fiiriyaan maxkamadii labaad oo midda maxkamadda ruufaanka ee Court of Appeal la dhaho oo maxkamadda maaragtay tan sarreysatan ku xogta waddanka inay ay maaragtay haddana ay tagaan ay maaragtay arrimahooda geystaan laakiin haddii asagu ruufaan uu qaadan waayo 14 bari gudahooda IBC waxay diyaarinayeen doorasho waay dadka sida adag dacwadda u waday ee guusha xildhibaan cabdiqaadir dacwadda ka gudbiyay waxaa ka mid ahaa cabdiqani zaytuun oo isagu ahaa musharaxii kaalinta labaad ku jira sida IBC ay sheegtay ee aadka oo la lamayay ee ku dhawaa isaguna maadaama uu ahaa dadkii ugu dhawaa ee dacwadda maxkamadda u gudbiyay haddii doorasho inay dhacdo waxay qaban doontaa muddo 60 maalmood ah saa hore noogu sheegtay ama 90 maalmood ay racfaanka maxkamadda u go'aankeeda noqdo waxaana soo bixi doonaa labada xildhibaan ama labadaas musharax iyo dad kale oo ka badan oo iyagu markaasi rabo inay u tartamaan doorashada idinku waxay sheegtay inaad u socotiin idinkoo eegaysin xuquuqda dadweynaha iyo hanaanka doorashada iyo siyaabada ay ku dhacday doorkiina muxuu noqon doonaa haddii doorasho dib loogu laabto idinka maasha allah horta waxa waaye waxaa tiri macnaha ninkii macnaha dacwadaasayta ugu weyn oo geeyay inuu ahaa cabdiqani zaytuun waan ku yar sixir rabaa dacwo muu geynin laakiin dacwayaasha reelagdheera markay dacwadeen oo petitionerski aniga iyo Cabbaas Qafow wuxuu ahaa candidatekii labaad macnaha markii doorashada dhamaatay la yiri asaga lambarka labaad ahaa wuxuu nagu ogolaaday inuu maaragtay shuhaadada anaga aan wadno inuu ka mid ahaado asaga nagu ogolaaday haddana maadaama guul ay soo hoyatay rag badan oo raggii kursiga horaan ku sii jiray kuwii tartameen oo kursiga hadda dananayaan baa jiraan marka bulshada reer lagdheera way fariisan doontaa way qiimeyn doontaa waxay ogolaan doontaa dadkii u tartami lahaa haddii hataa ay dhahaan bulshada ay ogolaadaan inay nin walba tartamo annaga waxba kama qabno waayo annaga waxaan rabnaa xaqoodii in la muujiyo in ruux ayuka ay doorteen oo ayuka u qalmo ay helaan marka way furan tahay waa open nin walba istaagi karaa walaalaheen intii tartameen kursigan hadda la soo dhaafo waxa ku tartantay 5 ruux 5 way istaagi karaan 5 kala ku darsami kartaa mase ninka ku jiro iyo ninkii kaalinta labaad ku jira labadooda tartami karaan marka taa bulshada lagdheera bay u taalaa laakiin annaga waxaan xaqiijinaynaa inaan kursiga soo celinay haddii maxkamad kale la tagana aan soo celinayno insha Allah waay marka inta doorashada ay socotay doorashada dhacday qaybo ka mid ah lagdheera waxaa la sheegayay inay jireen arrimo ka dhan ah markaasi amniga dad markaasi dhaawacyo iyo waxyaabo kala duwan ka soo gaaray ayaa wararku nagu soo gaarayeen intii doorashada ay socotay bal arrimahaas barakacii bulshada iyo arrimaha amniga ka dhanka ahaa go'aan noocee ay maxkamaddu ka qaadatay ma waa la xoojin doonaa insha Allah hadduu la yiraahdo tan uu kaalinta koowaad doorashada lagu noqdaa la dhahay laakiin waxa la sixi doonaa waxa alla wixii dib ka imaaday oo ku saabsanaa doorashada ayada waa la sixi doonaa marka IBC waxay la fariisan doontaa musharaxiinta bulshada sidii loo adkeen lahaa IBC iyo qaybta amniga oo adkeen lahaayeen doorasho xalaal ah inay meesha ka dhacdo waxay wixii maalin hore meesha ka dhacay waxba kama jirin maxkamadana way ogolaatay marka wixii wax ka duwan insha Allah ayaa dhici doona marka waqtina waan haysanaa shir baan yeelan doonaa shirar baan la yeelan doonaa bulshada iyo IBC iyo dhanka amniga marka waa la fariisan doonaa waa la hufin doonaa howlaha soo idil marka meesha ayada doorasho qiimo leh iyo sidii maaragtay bulshada ay rabtay inay ka dhacdo ayaan filaynaa insha Allah waay arrimaha amniga ayaa iyaguna muhiim ah oo waxyaabaha la hadal hayo ama laga hadlo iyo dadweynaha isku dhacyada dadweynaha taasoo waxa ugu weyn oo amniga sababayo ah iyo lagdheera oo aan ognahay inay meelo badan xuduud markaasi kala leedahay ismaamulada kale
amniga oo kale markay imaato concern ceenkee ah ayaa geli karaa haddii doorasho dib loogu laabto wallahi haddii amniga aragtay wax connection bas xiriir la kuma lahayn doorashada lagdheera inta badan wuxuu ku saabsanaa dad baad iyo biyo iyo xoolaha meel la daajisto isku haastaan mase dhul isku haasto uu ahaa haddana hooshii way yara degtay maadaama waqti kul lagu jiro marka inay doorashada saameyn weyn ay u keeni doonto minta ayada ilama oho maxaa yeelay dowladda ayaa maara shaqo ku leh wax boundary demarcations la hala subin doona insha Allah sanadka soo socdo macnaha inay wadanka kala bixiyo meel walba xubin walba meel ay tahay ma Isiolo ba ma Wajeer ba ma Garis ba sidaas ayaa loo kala bixin doonaa taasina dadku qanci doonaan marka inta la gaarin horteed waxaan filahayaa wixii kale oo dhul oo la isku haasto oo administrative boundaries in ayada nafteedana dawladda loo daan doono laakiin hadda wax ku saabsan dhul ku saabsan macnaha goobta doorashada ay ka dhacdo oo la isku haasto ma jirto marka laakiin meelo daaq dhul kale oo deegaankeena oo horaan la isku haastay way jiraan laakiin hadda dib weyn mase saameyn doorashada ay u keeni doonto taa ayada ma qabi inay jirto marka wax cabsi dhanka ma laho maxkamadda appealka ee racfaanka loo gudbinayo haddii ay guusha cabdiqaadir xuseen xildhibaanka halkaas lagdheera ee ansixiso tilaabadii xigta maxay noqon doontaa kulay waxaa noo furan inaan maxkamadda ka sii koro annaga oo supreme-ka aadna noo furan asagana midana u furan marka waa xaq petitioners kadaan markay dadka dacwoodeen hadaan aan leenahay laakiin annaga boqolkiiba boqol waxaan qabnaa in inta aan la gaari doonin oo maxkamadda hoose wixii aad aragtay maxkamadan labaad ee appeal maxkamadda kore wixii aad aragtay midan ruufaanka inay ayadana heli doonto oo la qaadan doontaan qabnaa maxkamadan waan ku kalsoonaa sida horaan aan ku sheegay maxkamadda labaadna anaga waan ku kalsoonaa maxaa yeelay wax cad baan wadanaa cabsi kama qabno haddii go'aanka ay soo qaadato aan u aragno inuu go'aan sax u ahayn waad maragtay waa ballaarinaynaa talada ayada inaan annaga naftaa inaan ruufaan kasii qaadan doono maxkamad kore aan aadi doono inaan maaragtay la qaadanayno haddii wax macquul u yahay laakiin waxaan qabnaa maxkamadan ruufaanka tii hoose wixii ay qaadatay inay ansixin doonto insha Allah way dib haddaan kugu celiyo dacwadii aad gudbiseen waxaa ku jiray saan filayo in IEBC sababta ay shahaadada oo la degdegtay ama ay u siisay xildhibaanka ayaa ku jirtaan filaya arinta IEBC ku saabsan haddii doorasho dib loogu laabto ayaga ayaa qabanaya waliba waxaa qabani doona saan filayo presiding ama hadduu noqdo PO-gi iyo dadkii clerkskii shaqada markii ka hayay deegaan doorashada lagdheera haddii doorashada dib loogu laabtana dee sida hore ma noqonayso doorasho keliya ka dhacdo lagdheera ay noqonaysaa kalsoonida IEBC ah ku qabtaan intee ay la eg tahay haddiiba doorashada in dib loogu socdo oo ay go'aan ka noqoto oo ay dib loogu laabto IEBC kalsooni buuxdaan ku qabnaa kaliya waxay ahayd shakhsiyaad yar oo inay wax maaragtay lumiyaan rabeen ayaa wax leeyeen moogi waxa IEBC ka socday IEBC oo dhan ka socday oo masay u dhanaayeen ma ahayn haddana qaladaadka ayuu ka waa la sixi maxaa yeelay doorasho waa doorasho cusub presiding officer iyo clerks iyo wax walba waa la soo dejin application baa la geysan dad cusuban baana la qoray insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo oo aan ahayn dadkii horaan doorasho soo qabteen ninka meesha u weyn dawladda kulli way bedeli doontaa oo meel kale geyn doontaa sidii nidaamka ahaan jiray nin kale la keeni doona asagana marka wax u weyn hadda marka ay saameyn ay ku lahaan doonto doorashada dambe ma jiro waxaan ka ahayn inay doorasho xalaal ay qabato maxaa yeelay haddana maxkamaddii baa ku soo celisay ceeb weyn ma ku noqon doontaa wixii lagu soo celiyay inay falkeed haddana ay ku noqoto marka waxaan qabnaa IEBC inay maaragtay doorasho xalaal leh oo tii maalin hore tu ka duwan ay qaban doonto insha Allah bal waxaan uga warantaa lagdheera waa joogtaa nin arrimaha bulshada la socdo oo hay'adaha la shaqeeya saa hore ugu sheegtay ayaa tahay bal shucuurta dadweynaha iyo shucuurta deegaanka ee siyaasadda ee hadda go'aankii dhawaan anagoo maalin dhaweed arkaynay dad badan ama lagdheera ka soo jeedo iyagu markaasi go'aanka ku faraxsan bal shucuurta iyo jabiga guud ee lagdheera ka waran hadda wallahi reer lagdheera aad bay u faraxsan yihiin waa markii koowaad oo maxkamad la geeyay petition horaan wax cusub bay ku ahayd way la yaabanaayeen laakiin hadda waxay ogaadeen xaqii dadweynaha inay la lunsan karin xaqii dadweynaha inuu muhiim yahay
inay maxkamad intii la tago wax lagu soo qaadan karo aad bayna u faraxsan yihiin in badan oo madaxa carrada kula jireen baa jiraan oo islahaayeen hawshan ma socon doonto way la yaabnaan maadaama wax ku cusub uu ahaa laakiin hadda way faraxsan yihiin marka hadda ka dambana uma maleynayo lagdheera inay doorasho maaragtay musuqmaasuq ku jiro ay ka dhici doonto maxaa yeele dadka indhaha u furmeen wax badan bay arkeen waxay arkeen wixii laga lumiyo inay maxkamad tegi karaan oo kusoo ceshan karaan marka go'aankana aad bay usoo dhaweeyeen ani iyo petitionaga kalena aad bay noogu hambaliyeen marka aad baan loo hadalhayaa maasha allah marka haddana waxaan qabaa maaragtay inay maaragtay nafaas labaad ay haastaan oo ay ku doortaan ninka ayagu kadan ugu jirto marka arrintan way soo dhaweeyeen faraxdin baa ka muuqata banaanay maaragtay maxaa laga qabtay xalfad baa laga qabtay shan dabaq xalfad baa laga qabtay madoogaashe xalfad baa laga qabtay waa saddexda division ee ku yaalaan lagdheera haddana waa saddexda sub county ee ku yaalaan lagdheera saddexda xalfad baa laga qabtay soo dhaweynayso go'aankii maxkamadda ka soo baxay taa waxay kutusaysaa inay kalsooni ku qabaan wixii maxkamadda ka soo baxay marka faraxdin fara badan iyo damaashaad ayaa ka jira lagdheera sin marka inay doorasho dib ugu laabtaan aad iyo aad bay arrinta usoo dhaweynayaan wayna ku faraxsan yihiin wayna sugahayaan waa tahay aad umahadsan tahay ismaamulka Garissa deegaanadu uu ka kooban yahay ay lagdheera ka mid tahay marka laga tago bulshada reer lagdheera bal nooga waran dowladda ismaamulka Garissa ama dadweynaha Garissa oo iyaguna dabcan in doorasho lagu laabto koonsaan ama wax ka qusayaan haday noqoto odayaashii oday dhaqameedyada iyo cuqaasho iyagu markaasi dhaxdhaxaadin u taagan ama bulshada qaybahooda kale iyaguna bal fikirkooda iyo diyaar garowgooda in doorkooda ay ka qaataan haday noqoto amniga iyo haday noqoto xasiloonidaba naftooda way soo dhaweeyeen waxaa nin walba wuxuu jecel inuu xaqa ag istaago maxkamad baa arrin hortaalay laba go'aan baa ka soo bixi lahaa inaan waxaan wadano uu baadil lahaa mase inuu xaq ahaa marka dadkan waxay jecel yihiin maxaa la yidhi guushe way dad badanta marka waxay jecel yihiin dhanka guusha inay mar walba ahaadaan marka dadka reer Garissa joogaan way soo dhaweeyeen go'aanka maxkamadda ay qaadatay sanadkan 2023 dhexdeeda magaalada macnaha Garissa County doorasho labaad baa ka dhici rabta tii koowaad waxay ahayd Garis markii mudanihii aadan barre la siiyey wasiirka difaaca marka uu mejadeeqo lagu soo doortay oo UDA mid labaad oo hadda maaragtay lagdheera haddana ka dhacayso ODM iyo UDA isku hayaan marka aad bay arrinta ayada usoo dhaweeyeen faraxdin fara badan baan wajiyadooda ka arkayay dadka sidoodana doorashada way iska jecel yihiin mar walbo guushana maaragtay way dad badan tahay garab istaag fara badan baan ka helnay dadka reer Garissa intii maaragtay danaynaysa lagdheera intii aan danaynayninbo lagdheera kaliya ma aha halka laga gudbiyay dacwadda ka dhan ahay doorashada eldas oo ku taalo wajiir deegaan baarlamaaneed waaye oo dacwad ayaa laga gudbiyay guusha xildhibaanka aadan keenaan maxkamadda sare shalay waxay amartay in markaasi guushiisa ay ansixisay oo ay si nabad u dhacday sidoo kale gofanaha ismaamulka wajeer Axmed Cabdullaahi Jiir ayaa isaguna guushiisa la ansixiyay dacwadaha ugu badan ee maxkamadaha yaalo ayaa waxa lagu ogaaday warbixin markaasi ay soo saareen warbaahinada qaranka in kuwa ka imaaday gobolka waqooyi bari ay ugu badan yihiin mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari markay timaado siyaasadda kuma heshiyaan ama markay doorasho dhacdo qaasatan sidee ayuu noqon karaa diyaar garowga dadweynaha ee rajadooda ama rabitaankooda qofka shakhsiga ay rabaan iyadoo oo mas'uuliyiinta aan ku heshiin karin doorasho iyo haddii inta doorasho dhacdo petition kale markii la gudbiyo bulshada waa kulley way diyaar garaysan tahay wax weyn oo ayuu ka maaragtay dhib oo dhex yaalla ma laho sida aad sheegtay siyaasiyiin baa hayaan inta badan laakiin haba ahaato doorasho walbo oo maxkamadda hoos geeyo maxkamadda waxay fiirinaysaa kiiska hor yaallo marka waxaan umaleyn 200 ka badan dacwaa la geeyay waddanka inta guuleysteen way yaryihiin aad bay u kooban yihiin inta hadda aan arkay MB waxaan umaleyn hadda waxaan arkay laba meel la dhaho Magarini oo Kilifi County iyo midan lagdheera oo Garissa County intii kale la geeyay badi waxa dhiman ma ogi oo ilaa iyo maanta ilaa ay bari oo wali dhiman oo maaragtay aan doorashada lagu dhawaaqin ma ogi inta kale ku diwaan la tuuray taa waxay hortusaysaa wixii aan wadanay inuu beenbeen ahayn inuu kiis adag ahaa bulshooyinkana waxaan dhihi dadka ma xumo siyaasiyiinta way isxan karaan laakiin petitionka markii la geynayo waa wax cad in lagu geeyo petition wax cad in lagu geeyo
anaga naftaan magan geenin iskamaana geen waxaad baan ku geynay intii waxaad ku geysana way heshay waxaad dhici kartaa mar qaarkood qaladka inuu dhaco laakiin maxkamadda qalad baa dhacay meesha ayada maxkamadda ma joogin waxay ku xiran tahay sidii maaragtay keeskaada adigi iyo looyarkaada aad u hagaajisatiin iyo caddeynta ama maxkamadda horgeyso waxaa dhici karaa meesha inuu qalad ka dhaco laakiin qaladka dhace caddeyntiisa aad maxkamadda horgeyn wayso hadduu qaladka caddeynkiisa aad geen wayso maxkamadda wax lagu eedayo ma laho maadaama aad qaladka caddeynkiisa aad geynin maxkamadda wax lagu eedi kara ma laho marka haddana waxaan qabaa meelaha gobooyinka la tuuray inay maaragtay caddeyn fiican ay geynin anagana caddeyn fiican aan geynay bulshooyinkana wax dhib oo dhex yaalla ma laho doorashada maaragtay way imaan walaalnimadana way jiri nabadgelyadana waa la adkeen marka wax cabsi ee ma jirto bulshooyinkana maaragtay u diyaar garowsan yihiin doorashooyinkan wayna ogyihiin mejan wixii ka dhacay ka saayin inuu dulan jirin way ogyihiin marka saasaad ogaanaysaa ibraahim sugow aad u mahadsan tahay maxaa ugu baaqaysaa marka bulshada baaqaaga ku aadan ay bulshada u direysay qaasatan reer Lagdheera iyo siyaasiyiinta muxuu yahay reer Lagdheera sidii maalin hore aan sheegay waxa u maleyn propaganda fara badan baan dhex wareegaysay laakiin warkayga inuu caddaado sida aan sheegay noqoto waa aragteen tan doorashada iyaan dooranaynaa iyo siyaasiyiinta waan ka tashan doonaa anaga noo taalaa haddaan reer Lagdheera nahay laakiin hadda aan isku diyaar galowno oo maskaxda inaan ka dhaadhicino doorasho cusub inay Lagdheera ka dhici doonto insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waqtigana ay noo sheegi doono oo IBC ay noo sheegi doonto haday ruuxaanka gadaashiisa ahaato iyo hadduu walaalkan ruuxaan aadin hortiisa ay noqoto laakiin iniga amniga ilaaliya walaalnimada muujiya wixii doorasho iyo nin shaqsi siyaasi waan ka tashan doonaa annagaana la soo bixi doonaa ninkiina mathali lahaa laakiin intaa horteed walaalnimada hala muujiyo nin shakhsi oo gaar u reeyay ma jirto aniga oo petitionaga ahaa ma reeynin laakiin guushan maanta waxay u soo hooyatay reer Lagdheera bay u soo hooyatay guusha waxay u hooyatay cadaalad bay u hooyatay guusha waxay u hooyatay sanaan bay u hooyatay guusha waxay u soo hooyatay doorasho maaragtay hufan oo sax ay u hooyatay marka guushan nin qaas oo gaar u leh ma laho waa guul reer Lagdheera ay leeyihiin marka inagana amniga ilaaliya walaalnimada muujiya hadalaha xanafta la iska ilaaliya social media ka suxun loo isticmaalin marka aan ka wada sugno maxkamadda ruuxaanka iyo IBC insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Ibraahim Sugow waan kaaga mahadcelinaynaa aad u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Sugow oo nagala qayb qaadanaya barnaamijka waraysi gaar ah ayaanu ku eegaynay doorashada markaasi Lagdheera oo maxkamaddu ay amartay in dib loogu laabto maadaama doorashadii sanadkii hore ka dhacday ay ku sheegtay inay ahayd mid ay xareeyeen musuqmaasuq iyo wax isdabamarin aad u mahadsan yahay intaas aan ku soo gabagabeynaya nabadgelyo